بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada casharkeeni ku saabsanaa barashada maamulka iyo maareynta oo af Soomaali lagu turjumay laguna diyaariyay insha Allah haddii la yiraahdo waxaan ka soo hadalnay functions of management ama shaqooyinka maamulku ay qabtaan ayaan ka soo hadalnay shaqooyinkaas waxaan u qaybinay ilaa dhowr qaybood qaybtii ugu horeysay aan hadda ku jirnaa qaybtii ugu horeysay waxay ahayd qorsheyn ama waxa la yiraahdo planningka ayaan waxaan u qaybinay ilaa 4 qaybood qayb waxay ahayd qorshe waqti maalinle ah qorshe waqti dhow iyo qorshe keed ah oo ah kan aan maanta ka hadli doono iyo midka ugu dambeeyo ah qorshe waqti fog afartoodaasba insha Allah hal ayaan uga hadli doonaa laba kamid ah waa ka soo hadalnay maanta insha Allah waxaan ka hadli doonaa qorshe keed ah ayaan ka hadli doonaa waa maxay qorshe keed ah ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo contingency plan ama contingency planning waxa lagu yiraahdo waa maxay qorshe keed ah maanta ka hadlaynaa qorshe keed ah waxa la yiraahdaa waxa lagu qeexaa qorshe la sii diyaariyay kana dhasha qorshihii weynaa ee shirkadda ama hay'adda loo dajiyay waxa inta badan loo tixraaci karaa sidii loo maamuli lahaa haddii ay dhacdo dhibaato hor istaagta qorshihii hore ee aad dajisay qorshihii hore ee aad shirkadda u dajisay ama hawshii aad dajisay qaabkii in hawshaas loo maareeyo ama loo qabto u dajisay haddii wax ka hor yimaadaan qaabkii u maamuli lahayd waaye oo hawshaas inta iskaga shaqadaas ka hor taagan inta iskaga wareejiso aad ugu gudbi lahayd shaqadaada inay si toos ah kugu qabsanto mar walba shaqadu waa asal ayadaa asal ah lama rabo in shaqadu ay istaagto ama adoo maamulo ah shaqo lagu diray aad meel dhex ka soo laabato oo tiraahdo shaqadii waa qaban waaye marka koowaadba qorshaha aad shaqada ku qabanayso marka aad diyaariso midda xigtaahay waxa weeye in aad diyaariso qorshahan hadduu shaqeey waayo qorshaha ku xiga ee aad wax ku qaban karto inaad diyaarsato haddii qorshahaas waxa la yiraahdaa Soomaali inta badan waxay tiraahdaa option plan B ay tiraahdaa planka B haddii A guuldareyso qorshe A oo guuldareysto qorshe plan D ayaa la diyaariyaa haddaba waa maxay ujeedada laga leeyahay qorshahan ama qorshaha keedka la yiraahdo ama contingency plan oo ah qorshe loo diyaariyay haddii qorshahan oo guuldareysto qorshe loo diyaariyay waa maxay ujeedada laga leeyahay oo ugu muhiimsan ujeedada laga leeyahay waxa waaye sida ka fahmi kartaanba in shaqadaani istaagin waa in shaqadan ay istaagin oo ay qabsoonto sabab kasta oo macquul ah oo ay dhacdo macnaha haddii wax kasta dhacaan in shaqadan ay ka istaagin haddii shirkaddu diyaariso qorshe noocan ah waxay ka saacidi kartaa in shirkaddu markasta ay noqoto mid ka hortagta dib walba oo macquul ah ahaydna in laga hortago ay noqonaysaa tusaale ahaan maanta waxaa lagu diray waxaa tahay lagu dhahay supervisor maamule xarun maamula ama meel maamula ayaa tahay shaqaalihii aad ku shaqaynaysay ayaa qof kamid ah waxa uu talagashay inuu shiftiga caawa ku galo isla caawa adoo diyaariyay qorshahaas uu ku diyaarsan yahay ayaa qofkii oo bahalkii ahaa gambi karaa jiro karaa shil gali karaa
wax kasta ay ku dhici karaan saas daraadeed shaqadiina inay qabsoontaa la rabaa dukaankii ama shirkadii ama meesha aad ka shaqeynaysa in la xiro waxaas waxa waaye waa wax ceeb waaye in la xiraa wax suuragal ah ma ah saas daraadeed maxaa samaysanaysaa waxaa samaysanaysaa niyadaada aad kasii balangaraysanaysaa qofkan haddii uu imaan waayo qofka ugu dhow oo xaafadiisu dhowdahay ama meel macquula degan oo aad wici karto war hebelow shaqadaas caawa fuli ninkii hebel ahaa dhibaatadaasaa ku dhacday ama ninkii shilow galay ama hooyadiisaa dhimatay ama wuxuusa ka imaan karinaa ku dhacay ama asagaaba iska gambiyaba oo qof iska cudurdaar badan u noqday waxaa lagaa rabaa marka inuu kuu diyaarsan yahay qof kale oo shaqadaas qaba lahaa sababtoo ah shaqadu waa asal inay shaqadu ayada qabsoonto waa waajib yacni dukaanka in la xiro ama shirkadda in la xiraahe waa wax aad iyo aad reer u ah waay oo macquul aan ahayn okay waxaan ku xujinaynaa see loo diyaariyaa marka qorshaha noocaana plan B qorshaha contingency plan la yiraahdo see loo diyaariyaa horta marka ugu horeeya oo la diyaarinayo number 1 horta waxaa sheegtaa kheyraadka aad heli karto kheyraadka maxaa laga wadaa waxaa ka mid ah shaqaalaha staffka dadka ku saacidi kara ee shaqada kula haya horta diyaari waliba waxaad diyaarisaa siday u kala fiican yihiin prioritization u sameey hebela number 1 ah hebel haddii uu xumaado hebela ku xigi kara diyaari sheeg marka waxaa kaloo sheegtaa qataraha kusoo wajihi kara qataraha maxaa ka mid ah hebela dhintay hebelkii ugu talagashay shaqadan baabuura jugsiga maanta jugsi karo jidka ku xirmi karo askariya xiri karo cidiisa iyo cid kale inta isdagaalaan oo aabahalkii ahaa asagana issue la geli karaa oo la xiri karaa wax kasta dhici kara diyaar marka qatarahaas qorshaheeda marka qofkan waa la xiri karaa wax kasta waxaasoo dhan waxaad diyaarisaa yaa bedeli lahaa yaa bedelayo cidda bedelayso sheeg okay marka intaad sheegto qorshahaas kuu degan marka adiga maamulaha guud haddaad tahay la wadaag supervisorkaaga ama ciddii kale qosayso la wadaag waxaa dhahdaa haddii hebel imaan waayo hebel aa ku bedelaysiin haddii hebel imaadana saasaa yeelaysiin marka saasaa dhaysiin okay qodobka kale waxa waaye marka la diyaarinayo waxaa lagaa rabaa dib u hubi qorshaha markii aad shaqadaas aad qabato waxaa lagaa rabaa inaad dib u hubiso oo aad dhahdo qorshahani ma shaqeynaa ma fiican yahay mise waa xun yahay inaad dhahdo ya waxaa laga yaabaa dadka qorshaha markaad dijiso dadkii qorshaha ilaa dadaa shaqadan la qabanaysa ma ogtahay dadkii inay qaarkood ka hor yimaadaana laga yaabaa waxyaala ciladaada inay ka sheegaan ciladaadkaas marka inaad ka saxdaa lagaa rabaa ciladaadkaas inaad ka saxda ayaa lagaa rabaa okay marka waa mahadsantihiin intaasaan kusoo gabagabeynaa nagala soo xiriira haddii aad buugga dhammaystiran u baahan tihiin buuggan wuxuu idinka saacidi doonaa dhammaan waxyaalaha managementiga la xiriira ayuu idinka saacidi doonaa insha allah waxaan rajeynayaa inaad shirkadihiina qaab fiican u maamuli doontaan haddii aad buuggan iyo cashiradan aad si fiican u dhuuxdaan waa mahadsantihiin